Soomaaliya cudud military oo degdeg u ciribtiri doonta khawaarijta Al-Shabaab ayaa maanta ku jirta diyaar garowgii ugu dambeeyay ee wacdaraha furimaha dagaalka ka socda dalkeena. Kumanaan askari oo ku dhawaad 4 sano loo carbinayo difaaca dalka lumay saaxada dunida ayaa xilligan ku xareysan xeryaha Muqdisho. ciidankan oo sidii roobkii uga soo daadanaya diyaaradaha military ee Asmaratu Muqdisho ayaa sanado badan kadib hadda oo ay soo caga dhigteen ciidda dalkooda hooyo wuxuu madaxweynahoodu ku wargeliyay in salaanta ehelkooda ay ka horeyso soo afjaridda Al-Shabaab si loogu wada najaxo dalkeena nabad ah. waan garanayaa aabbaan ahay daranada dad qaarkiin oo qabo inay iska dhex galaan beledkoodii dadkoodii u tagaan safraan oo maxaan ku raadayay tuuladii ay ka yimaadeen iyo degmadii ay ka yimaadeen ay tagaan waa tagi doontaan ilaahay idankiisa degmadii oo xor ah cabsi aanay jirin diyaaradaha la isku qaadaayo bas intaad raacdo aad magaaladaadii iyo tuuladaadii aad si tartiib ah adoo fasaxa u tagaysid waayo waxaan u taaganahay inaan gaarno haddii alla yidhaah maanta ma haysano diyaaradaha lagu cararayaa baska jidka lama hubo inuu guulaysan inuu geynayo in kale ma miinaa la qarxi doonto ma dhexdaa loo istaagi doonaa ma garanaysid maalin waxaasoo dhan intaan ka nimaado aad xaafadaadii iyo magaaladaadii 100 kilomitir ama 1 kilomitir ha jirte aad bas intaad u raacdo adigoo shaki yar cabsi yar aanan qabin aad tagaysid waayo waxaan u taaganahay inaan soo celino oo aan helno haddii alla yidhaah tababarka ay mareen oo ah midkii ugu adkaa ee ciidan la siiyo qaab dhismeedka da'yartan oo kolkii horeba lagu xushay nidaamka adag ee loo maro dhismaha ciidanka xoogga Soomaaliya waxa uu weheliya balan ay waayihii adkaa madaxweynahooda uga qaadeen buuraha Asmara ciidankii iyo awoodii iyo xooggii caboona maxaan ku raadayay intaasoo dhan maana la geeyo maana la qaado maxaan ku raadayay aan tagno dalkeenni iyo dadkeenni maan u tagno inta aad lahaydeen maanta barihii la soo dhaafa ayay qadarneed inaad soo gaartaan waa soo gaarteen hadda waxaa la rabaa in la idin hadiyo dadka dhan waxay Soomaalida maanta joogto waxay aaminsan yihiin ciidankaas doo yimiday bas waaye shabaab waa u dhamaatay annaguna waa aaminsannahay idinka marka waxay idin jira xaqiina maxaa jira inaad ka dhabaysaan waa hubaa jidkaas daa ku dhaqaaqdaan shabaab kurtiin waa ka sii kala cararaya si loo daraaseeyo waqtiga ay Soomaaliya heshay ciidankan tayada iyo timaadada la filan karo kolkii loo jiheeyo jiidaha dagaalka waxaan su'aalo ka weydiinay Axmed Carab oo bartay culumta istiraatiijiyadda iyo amniga Soomaaliya markii loo fiiriyo ciidamo aad u tiro badan dibadaha loogu soo tababaro wadamada saaxiibka ay leeyihiin qaasatan ciidamadan horta ciidamadii Soomaaliya loo tababaray waa ciidamadii ugu habboonaa oo xilligoodii yimid waliba haddii oo aan la dhihin waa ciidamadii ugu tirada badnaay oo hal mar dibadda lagu soo tababaraa la dhihi karaa waa ciidamo kala duwan oo qaybaha kala duwan oo ciidamada u tababaran loo soo tababaray xilliga ay ku soo aadeenna waa xilligii loogu baahi badnaay oo nimankan khawaarijta ah ay marayeen xilli gabangaba ah markii hadda madaxweynuhu uu ku dhawaaqay run ahaantii ummadda Soomaaliyeed waxay dareentay hamigii lalahay ee ahay nimankan khawaarijta in laga guuleysto inuu aad u rumoobayo ciidamadaas aadka iyo aadka tababarka kala duwan qaba markay dalka dib ugu soo laabtaan waa dabargoyntii nimankan khawaarijta meeshii ugu dambeysay insha Allah hadii la yiraahdo Soomaaliya waxaa ka socda dagaal jihaad ah ciidankii horey u joogay dalkan waxay degdeg u soo hooyeen guulo waaweyn dowladdii Muqdisho ku sugi jirtay dhagarta cadowgana waxay maanta ka fikiraysaa dhismaha nolosha muwaadiniinteeda ku nool magaalooyin 20 sano aan sawirkooda la arag baaba Al-Shabaab